guulaha aad ka gaarto nolosha iyo kasbashada habdhaqannada wanaagsan intaba adiga ayaa u ah hogaamiyaha naftaada. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. السلام عليكم waxaan ahay qaasim maxamed ku soo dhawow muuqaal cusub. waxaa jirta awood aad leedahay oo laga yaabo inaadan ku baraarugsanayn. ma og tahay inaad tahay qaabeeyaha iyo hagaha naftaada? ma og tahay inaad tahay hagaha caqligaaga iyo maskaxdaada? noloshaada qaabeynteeda iyo hagiddeeda waxaa iska leh oo koontaroola adiga. ma jirto qof u xaq leh koontaroolidda iyo qaabeynta naftaada oo aan ka ahayn adiga. adiga ayaa ah mar walba maareeyaha caqabadaha soo wajaha naftaada. adiga ayaa ah dhisaha iyo kobciyaha naftaada. adiga ayaa u ah naftaada farxad abuuraheeda iyo sababaha guusheeda. waxaa tahay sida kabtanka wada markabka ama duuliyaha duuliya diyaaradda ee leh awoodda iyo koontaroolidda lagu gaarsiiyo halka loogu talagalay. sidaasi darteed qofna ha ka ogolaan inuu kuu yimaado kuu sharxo ama ku fahansiiyo naftaada iyo arrimaheeda, sababtoo ah ma jirto qof adiga kaaga aqoon badan naftaada, oo waxaa tahay qofka keliya ee sida dhabta ah aqoonta ugu leh naftiisa. taasina waa awooddaada qarso. qofna ha u ogolaan inuu maamulo, qaabeeyo, siduu doonana uu u fasirto naftaada, balse adiga u qaado mas-uuliyadda naftaada si 100% ah, oo u istaag bedelidda caadooyinka aan wanaagsanayn ay leedahay naftaada. u dhabar adeegka guulgaaridda caqabadaha ku hareeraysan naftaada. u istaag abuuridda caadooyin iyo habdhaqanno wanaagsan ay yeelato naftaada, oo bedel sida aad u aragto nolosha, oo noqo qof wax kasta ka fiiriya dhanka wanaagsan. qofna ha ka ogolaan inuu ku siiyo qorshooyinka naftaada, balse adiga noqo qof madax bannaan ee leh awoodda lagu dejiyo laguna hago qorshooyinka noloshiisa. qorshooyinkaagana waa kuwa ka dhasha rabitaankaaga iyo halka aad la rabto naftaada. qor qorshooyinkaaga oo ku fara adeeg fulintooda. qasab maahan inay dadka ku qancaan qorshooyinkaaga iyo rabitaankaagaba, balse mar walba naftaada xasuusi waxaad haysataa hal naf oo kaaga baahan dhisid, hagid, kobcin, kalsooni ku beerid, dhabar adeegid, kontaroolid iyo wax kasta oo u kordhinayo sumcad iyo qiimaba. waqtiga ugu badan ee aad bixiso ha noqdo mid aad ku bixiso wax anfacaya naftaada. marna ha ku bixin waqtigaaga wax aan faa'iido u lahayn naftaada. ugu dambeyn, dhib ma lahan sida dadka u arkaan ulana dhaqmaan naftaada, balse waxaa muhiim ah inaad adiga leedahay awoodda lagu koontaroolo laguna haga naftaada. hagaag. inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay xor u ahow koontaroolidda iyo hagidda naftaada, oo marnaba yaysan ku maamulin dadka iyo sheeyadaba, oo guulayso goor walba. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsanid.